ورني waxaan ka warramada ka waran saadiq idiriyo waxaan soo idab darama ahniyaho war waxaan oo kale walaalayaal oo ka warramay seel laha waxaan oo kale waa wax la la yaabo waxaan maxaa sidan loo yeelay laakiin war dadkan maxay sidan u sameynayaan waxaan oo kale waa qalad tan kale si kas ayaa loo sameeyay waxaan ku talgal ayaa loo sameeyay falkan dadka noocaan oo kale sidee loola dhaqmaa ilaahay amarkii waa yaab wallaah mar kasta oo wax aad isleedahay hagaaji waxbaa ka halaabay hamigaaga waa lagu ciyaarayaa wallahi dadkaan oo kale weligay ma arkin markaad isdhahdid wax kasta way isku toosan yihiin meel ayay wax ka qabiyoobayaan oo aadan ku talagelin waa adduun iyo xaalkiis laakiin aniga arrintan waxay igu noqotay lama filaan warniyo markaad hami yeelataba oo aad isdhahdid wax un samee ama dantaada wax u qabso kuwaa kaa caraysiinaya niyahow tahliilow waxaan kuu sheegay waa sidan oo kale inaad tallaabo horumar qaadno dadka qaarkoodana ooma ogolo waa u jeeddaa waxaan saakay la kulannay war waxaan looma baxo waa u jeednaa in hawshii saake loo soo baxay ay baaqatay laakiin waa ka taxadaraynaa waana xalinaynaa waxaan rag baa alle inaga dhigay oo haddamay suubiyaana intaaska ka tawaane haa waa nasro qofka soo socdo waaba tan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرية تهليل إيه صادق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حالة عادي معها يا أمالينا يا وجيدو ذا عرق يا كموقة ويلشان هاي بل إيه ورما محاقل دان ساكي وجيدين حناق يا كموقضي سيدي أن إذنكو أركي جرمتيهين تنكلا وحا هور لو يري قفاد وحكو قرصان لهيد وحلقا مقريو يقده wax ii sheeg bal nasrooy shaqadii doomaha aan ka haynay waad ogeyd ee dayactirka ahaa oo baryahan oo dhan aan wadnay haa waa ogaa in doomaha aad dayactirayseen haye maxaa dhacay diiriye doomaha dayactirkooda waxaan dhammaynay habeen hore waxaan la rafaadnaba saakay waxaan u soo kalahnay in doomaha ku howlgalno waxaan doonaynay inaan kalluun soo jilaabanno haye waan gartay waxaan webiga jiinkiisa ugu nimid saakay oo aan aragnay labadii doonyood oo laba meel laga dalooliyey oo ay biyuhu soo gelayaan waxayna nagu noqotay fajac iyo amakaag waa wax lala yaabo nasrooy walaalay doomihii kalluumaysi looma qaadan karo oo daloolka ayaa biyihii ay ka soo gelayaan marka xanaaqa naga muuqdo taas ayaa sababtay eedan infaanti walaal intuna hanaagsanna wal jiru qiyaasta walaal hawshii aan u soo kallahnay iyo ku talagalkeennii saake sidaas ayuu ku baaqday waa hadda iyo dayactir kale oo cusub inaan ku samayno doomaha sidaas ayay wax u jiraan nasro waxaan u malaynayaa wax lagaa qariyey ma jiraan si fiican ayaan u gartay walaal diiriya arrinta oo dhan waad mahadsan tahay sidaad iigu faahfaahisay adigaa mudan walaal hadda maxaa laga qaban karaa dayactirka doomaha in leen gacmaha lagama laabanayo haddii dhibaato timidee wallaahi nasroy runtaa waa kow dheh kolley hadda waxaa loo baahan yahay inaan dayactirno doomaha si looga badbaado in biyaha ay soo galaan marka waan ku qasbannaha doonta gudaheeda inaan hagaajinno waa in la dayactiraa doomaha sida ugu dhaqsiyaha badan tahliilow runtaa waa kow dheh nasroy laakiin waxaa loo baahan yahay alwaax qaali ah oo doomaha lagu dayactiro si loogu dhejiyo ama loogu daboolo meelaha laga dulooliyo doomaha soo ma fahmin waa samaynaynaa doomaha daloolkooda waa qasab taasi haa waa in la sameeyo doomaha si aad hawshiin kalluumaysiga aad u guda gashaan si dhaqsi ah wallaahi waxaa loo baahan yahay in la helo lacag si loogu soo gado alwaaxdii lagu dayactiri lahaa doonta anigana wax lacag ah ma haya hadda saddexdeeduna isku mid baan nahay runtii dhibaatada jirta waa taas haa waa gartay alwaaxdu waa qaali miya waxaan idin hayaa fikir haddii ay suuragal tahay waaba war fiicane fikirka muxuu noqon karaa noo sheeg bal aan dhegeysanay qalab badan ayaa jira aan heli karno qalab aan heli karna ah oo qalab sidee ahna waxaa jira qalab badan oo ka haray dayactirka iskuulka marka suuragal ma tahay in qalabkaas meesha yaala ma u isticmaali kartaan dayactirka doomaha wallaahi nasro horta nasro waa maasantaha kow dheh aadaa u maasantaha fikirkaaga waa cajiib laakiin alwaaxdaas ma aha kuwa loogu talagalay in doomaha lagu dayactiro soo ma fahmin ma lagu dayactiri karo kuwaas tahliilow wallaahi nasro waa gabar fariid ah waxay doonaysaa oo keliya in hawsha kalluumaysiga aysan istaagin oo hawsha noo sii socoto diiriyo niyahu waa runtaa kowdhi nasro way nala shaqaynaysaa waayo waxay jeceshahay inaan annaga horey u soconno waana gabar fiican oo fariida maasha allah nasroy waad ku mahadsan tahay walaal sida wanaagsan ee aad noo garab taagan tahay oo aad noola duuban tahay fikirkaas aad noo soo jeedisana aad baad ugu mahadsan tahay oo ah inaan ka faa'iidaysanno iyo in kale adigaa mudan tahliil waa waajib inaan isu gurmano oo weliba aan isgarb istaagno
waa runta waan ku dadaalaynaa sidii aan u dayactiri lahayn doomahaasi waan dadaali doonnaa dhib ma lahan waan ka xumahay dhibaatada loo geystay doomihii aad ku daasheen dayactirkooda in si fudud loo dalooliyo oo howshiina la hakiyo haddana waan idinka sii tegayaa ee waxaan idin xasuusinayaa inaad ka soo qayb gashaan kulanka golaha deegaanka bal waan ka soo qayb gelinaa marwayna shaam intaha marbal ha socoy teendhada iyo galaane haddareer has boobsibal reer ayaa deggan oo carruuri ka xanuunsanaysa miya haa reeraa deggan meeshaan khayrtoy ada owlaadun iyo daawadun siyaasa gorotay hadalkeeda waan gartay jawaahirey waad mahadsan tahay walaal onagun yar sheembal ha dhiib ani daawada siiyayheen usub waayahay daawadun hadhowti iyo la siiya onagun kastay waan gartay marway ka waran bal owlaadun ada aragti oo cudurka haleeli oo xiradun ka jiran bal sakiin la muuqadan ada markii ada fafiiridi sakiin la muuqadan owlaadun waxaan la yaabay carruurta kaamkan barakacayaasha ku nool tabardarrida ka muuqata waa wax laga naxo walaale laa ilaaha ilallaah weli aday wal aragtay meelun dhibaato xoogan iyo ka jirta taasi oo lan qiyaasa korna weliba walaalay weli ay isdeeri waa dhibaato culus daacuunkan ka dilaacay xeryaha barakacayaasha walaalay la tacaalana sianu hakii lahayna xanuunkun intuusu xiradunka sii fida waayo hadduusu xiradunka sii fida dhibaato intunku bileeran iyo kooyas cudurkan waxaan u malaynayaa in si fudud loo kala qaado waayo haddoo aan arkayno carruur badan ayuu ku dhacay daacuunku haa dabcan haa si ada sheegtiwu owlaadun ma etahee saasa ka shal qaadayan cudurkun tan kala owlaadda isdhexgalaayan isla dhidheelayan waana mashal dhoorsidaayan waan gartay taas ayaa sababaysa inuu sii fido cudurka haa runtawo hooyooyinka to ka mid eh iyo weliba iyo iin sheegtay in waalidiinta habooqda owlaadun waalidshohaano ka mid eh owlaadda ini iyo cudurkun qaadeen waan fahmay haye saasay iyo ka qaadeen cudurkun waana marwa fahantay ad hadalkay dadkuna ma oga sifooyinka lagu kala qaado cudurkan maya waxba kama oga dadka inta badan wuxuu ku dhacaa carruurta waalidiinta ayaa qaarkoodii ogeyn sida fudud ee lagu kala qaado cudurkani daacun alooleedka ah meeshaan jawaahirey xaaladdeeda ma sahlana sida ii muuqata aniga haddeertan eed runta walaalay marwo wallaahi inayaan sahlanayna xaaladda inta ka jirta waato dhibaato iyo khatar horseeda korta haddii wallanka qabana dhibaatadu inta ka jarta aniga aad iyo aad ayaan uga naxsanahay waxa aan arkay run ahaantii weli ay isdeeri adi wal aragtay weli marwoy carruurtii aan arkay ee tabardarrida la liidata maxaa ka daran oo aan arki lahaa wallaahi walaada aragta ma jiro kow dheh hadda wayba fadahaya ini ana owlaad kala daawo sii deersiya wallaahi bukaanka eeda ayaa anbadanya walla qiyaaso korona ma'e hadda wayba fadahayee ini ana daawooyin deersiya anta ada aragtayna ka badanyan bukaanka oo xiradoonka jirta waan dareemi karaa walaaley ee inaan arrintan kaligan isku koobna maahee waa inaan dadka gaarsiinaa haa saaslay insha allah kolley hadda ana wali karaankay ee iyo qobode way banna ka sii shaqeeyey haddii ilaahay karaala nagada si cudurkunka dhabar jarama lahaayo oona macnaha fidowshanan laka gaabii lahaaya ka shaqeeyan haddii ilaahay karaala nagada insha allah aad iyo aad ayaad u dadaashay jawaahire hadda way baha aragay lama owlaad oo angeeriyooti cudurkun daacuunka ah xaaladda inta ka jirta ma fayle xaqiiqdii marwoy waan arkaa jawaahirey wax waliba indhahayga ayaan uga jeedaa maaha wax layga sheekaynayo xeradan barakacayaalka dadka ku nool haddii iyo caawinaad iyo unhelna xaaladda sida ka sii bileerado doonto hubataasay haddii cudurkun wallanka qobanna walaalay jawaahirey dadka xeradan ku nool waxay u baahan yihiin kaalmo dheeraad ah iyo in loo soo gurmado saakadan mid sahlan maaha waa runtaa walaalay hadda kaalmada ay heleen ma ahan mid ku filan balse hadda waxaa jira hay-ado gargaare oo waddani ah oo ka timid gobol kale oo magaalada soo gaartay waan gartay waxaan rajaynayaa in hay-addan ay ka howlgali doonto xiradani ayna caawin doonto dadkan barakacayaasha ah ee dhibaatadan daacuunka la ildaran waxaan kuu sheegayaa jawaahirey meeshaan xaaladda ka jirtaa waa mid baaxad weyn mana sahlana waad aragtaa
haa runta wallaahi bilaahi ma sahlan waa sababta aan hakiin wadi oona anta hakiin tusi iyo taasay ka mid jawaahiray waxaan ku xusuusinayaa inaan aadno hee kulanka golaha deegaanka haa runta waay inuunan ban waay shirkaasay haa inuunan ka baaqneen ban waay bal ka warrama arrimihii barakacayaasha iyo xaaladoodii idinkaa beerteenna taga mar kasta oo ka warhaya arrimahaasi cambarow weli way soconayaan arrimahaasi dadkii barakacayaasha ahaana kama oggolaanayno inay sii degganaadaan beerteenna iyo agaarkeeda wax layska aqbalayana ma aha arrinkaasi arrintu waxa ay wax ka qabasho lahayd markii ay dadkaas barakacayaasha ah meesha soo degayeen hadda oo ay ku xididaysteen ma garanayo sida looga rari doono ma dhici karto mana yeelayno hadalkaasi cambaroy wax kastaa wakhti ayay leeyihiin dadkaas barakacayaasha ah ma doonayo inay halkaas sii degganaadaan taas midaan oggolaanaya ma aha anigu haba yaraatee haddii markii hore oo ay soo degayeen wax laga qaban waayey hadda ayaa wax laga qabanayaa mana yeelayno inay sii degganaadaan amaba ay ku sii nagaadaan deegaankeenna anigu waxaan ka baqayaa in dadkan barakacayaasha ah in ay deegaankeenna la wareegaan marka aan arkay siday ugu soo qulqulayaan maalin kasta waxaana way iska dhammaanayaan tan kale dadka reer isku filan waan wada gaadhnay dadka barakacayaasha ah ee ku soo qulqulaya magaaladeenna mana oggolaanayno insha allahu tacaala hadda waxaan maqlayay ololo ku saabsan arrimaha barakacayaasha oo hadda dabka saaran yah maxaa tidhi ololo miyaa tidhi muxuu yahay ololahaasi ii sheegoo bal ii bayaane fadlan waad bilowday xanaaqaagii alla odagayga iyo xanaaq intee kala geeyaa cambaro ii sheeg hadalka waa ii bilowday muxuu yahay ololaha aad sheegayso ee dumarka magaalada ayaa waxa ay wadaan ololo wax looga qabanayo iska hor imaadyada dadka barakacayaasha ah iyo dadka reer isku filan colaadow gabadha hadalkeeda dhegayso ha iska boodin hortee warkiiba laguma dhammayniyo see wax kaa yihiin war u kaadi oo gabadha warka haynoo dhammaysee sug adeer sharmaarke wiilkaaga waxba ma sugi karo waa seeflabood waad aragtaa wax uu sugi karo ma laha adeer gacali hadalka noo wad muxuu ahaa abaabulka aad ka dhawaajisay ee ay ku jiraan dadka deegaankeennu ay ku howlan yihiin waxaa jirta in dumarka ka socda barakacayaasha iyo kuwa kale ee ka socda magaaladeenna ay wadaan ololo wax looga qabanayo iska hor imaadyada soo noqnoqonaya ee labada dhinac u dhexeeya arrimahaas ayaa socday oo ay haweenku garwadaan ka ahaayeen welina waa la wadaa sheekadaas waan fahmay hadalkaasi haye adeer waad mahadsantahay waxaana kaa mahad celinayaa inaad xogta i siisay waad mahadsantahay adeer gacali aad iyo aad sheeko ayay meesha ku hayaan wallay laysma yaqaano dan ayaase laysku baran doonaa annaka ayayba inoo tashanayaan war dadkan ayaa wax u sheega hadda waxa ay yeesheen shirar joogto ah aniga wax badan laylama socodsiin waayo waxaan u caddeeyey inaan odagayga la mowqif ahay aad iyo aad baan adeer gacaliya kuu fahmay waad mahadsan tahay mar kasta 100% jeer baan kuu mahadnaqayaa haddii ay shiraan iyo haddii ay olo wadaanba aniga waxaa meel ii yaalla go'aankayga oo ah in dadkaasi aan ka raro deegaankeenna guud ahaanba adiga taada waa kuu gaar ayagana waxa ay wadaan waan iyo in nabad lagu wada noolaado sida aan ka dhadhamiyey hadalladooda kolley meeshaasi waa lagu kala baxayaa maalmaha soo socda mana filayo in barakacayaashu ay sii deegaanaysan doonaan deegaankeenna sida aan ku rajo weynahay insha allahu tacaala markaa isdejiya arrimuhu khayr bay ku dhammaanayaan ilaahay baynu insha allah us joognaa waa sax ma deganaanayaan sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana uga raraynaa deegaankeenna ama ha shiraan ama iska daayaan islaamahaasi howlla-aantu ay hayso oo annaga keliya shaqada naga dhigta colaadow adigoon xanaaqin ayaad howlahaaga dhammaysan kartaa ee carada iska dhaaf hadal maba laguu sheegi karo adiga ayaanba kuu naxayaa sida aad u xanaaqaysid mar kasta ma waxaan laga xanaaqinba waxa ay samaynayaan dadkaas barakacayaasha ah ee dhibaatada nagu haya warkooda goordhow ayaan soo afjari doonaa kuwan haysuuleeyeen colaado aabbo markaa ka gama insha allahu tacaala waa dhammaanaysa arrintu waxba iskuma wareerinayo laakiin meel ayaan uga soo harayaa dadkan dhibaatada nagu haya ee beerteena dul degan waxaan idinka hilmaamay haye cambaro maxaad halmaamtay noo sheeg bal shirka golaha deegaanka ee goordhow dhici doona waxaa ka soo qaybgelaya dumarka ololaha wada si ay halkaas uga hadlaan oo ay mowqifkooda uga caddeeyaan yaah sheekada waa weyn tahaye aabba sooma maqlaysid waxa meesha ka soconaya oo la sheegayo waan maqlay colaadow tartiib adiga iswaalka jooji fadlan wax kasta waxay ku dhammaanayaan wixii alla ka dhigay waa wax jira warkaan idiin sheegayo
cid dambe wax laga weydiin maayo shirka golaha ayaad ku arki doontaan dumarka hawsha wada oo dhan aabbo waa inaan dhiig isku yeelno oo aan fadhiga ka kacno sidaana ma anfacayso oo maxaynu samaynaa colaadow aabbo waa inaan karti isku yeelnaa waxaan samaynaynaa farsamayaqaanka iyo shaqaalaha beerta ayaan hubaynaynaa si aan isaga celinno dadkaasi deganaan waa inaad yeelataa cadhadaadan anigu waan fahansanahay khilaaf cusubna mid la aqbali karo ma aha haddeer bulshadanna ma aqbali doonto ee aan isdejinno koobabkii kale bal ii keena halkee ayay ku jiraan waayaabe aaway wiilkii halkee ayuu aaday war bal koobabkii kale ii dhiiba aan shaaha ku shubee mahadow ku aawa xaggeed qabatay way kan filsanay war bal macaamiisha shaaha u gee hoo kan ugu hormari ninka halkaa fadhiya sii kan iyo kanna u soo noqo labada nin oo halkaa fadhida sii waayahay hadda ayaan u geynayaa assalaamu calaykum filsaney wacalaykum assalaam nasro ii warran soo dhowow waa fiicanhay abaayo xaaladda waa caadi nasro maxaad warhaysaa maanta waxaad u eg tahay sidii qof wax ii sheegi rabee iga dabagee magaaladana aad ayaad xogogaal ugu tahay nasraay maxaa jira wixii idhaafoo dhan iyo waxaanan ogayn hal iigu taanataanee ii fadhiiso waay ammaanaysaa iga daahee maya kuma ammaanayo ee karti ayaad u leedahay wax kasta in aad la socoto saaxiibbo badan ayaad magaalada ku leedahay anigu taa waan ogahay bal horta shaahaan kuu shubo war ayaanba kugu wareeriyey marka aad timidba war baan kugu bilaabaye shaahaan kuu shubo iga qabo shaaha nasra caddeey saaxiibtay horta shaaha dhabdheh mahadsanid filsan warka iga dabagee hadda saaxiib maxaa cusub adigaa magaalada soo marmaray oo meelaha soo indha-indheeyey maxaa cusub ayaad isleedahay maanta oo aad soo aragtay waxaan la yaabay sidaad u garatay inaan war kuu haayo caadi maba tihid saaxiibey filsan laakiin sidee igu garatay anigu aad ayaan kuu garanayaa nasray oo adigoo yar ilaa iyo hadda ayaan ku garanayay magaalada isku filan ayaannu wada joognay oo aan ku wada noolayn yaraantaadii ilaa iyo haddana aqoon fiican ayaan kuu leeyahay waa runtaa ee saaxiib waxaan kuu sheegayaa inaan haddaba soo maray webiga jinkiisa waan gartay haye bal ii warran waxaan kuu sheegayaa filsaney in safarkii dhallinyarada ay ku soo kalluumaysan lahaayeen baaqday wuu baaqday maxaad ka waddaa wuu baaqday ma safarkii kalluumaysiga nasro warka ii jilci see wax u dhaceen maxaa jira warka waa cad yahay waa sida aan wax kuugu sheegaayo ee ma adigaaba isugaaya filsaney warkaan ma hubtaa oo waad soo maqashay soo maaha waad iga hubtaa nasray soo maaha war waan la soo kulmay wixii dhacay aad ayaan kuu fahmay haye wiilashii oo webiga jinkiisa taagan ayaan la kulmay oo aad u caraysan waan la yaabay markii hore balse marka aan waraystay ayay ii sheegeen wax walba oo dhacay oo maxaa ku dhacay wiilasha oo hor joogsaday kalluumaysigii ay aadi lahaayeen maxaa hor istaagay bal ii sheeg waxaa ka baajiyey saakay markii ay ku soo kalaheen webiga waxay la kulmeen doomihii ay beryahan dayactiraayeen oo ay saaki ku soo kalluumaysan lahaayeen oo la dalooliyey ayay la kulmeen yaa ka dalooliyey doomaha wiilasha bismillaahi raxmaani raxiim see wax u dhaceen yaa dalooliyey doomaha sidaas ayaa dhacday doomihii kalluumaysi looma qaadan karo sababtoo ah biyihii ayaa gudaha soo galaya doomaha waa wax lala yaabo waxaan oo kale oo weliba laga xumaado waa waxaan loo dulqaadan karin subxaan allah sidaas ayay wax u jiraan walaalay waan ka soo tegey markaan la yaabay siday u murugaysanaayeen tahliil diiriye iyo wiilkii saadiq ahaa saddexdoodaba waxaa soo galay yaa soo galay ii sheeg caadi iska dhig maxaa kugu dhacay nasra yaa soo galay see wax u jiraan waxba ha ka welwelin wixii hore way dhammaadeen shalay ayaannu wada hadalnay aniga iyo tahliil iyo adeer warsame ee horey u soco xaaladdu waa iska caadi wax dhiba ma jiraane noo wad waan gartay haa waan garta waxa soo galay waa aqwaankaagii tahliil iga dhaaf waxaas waa wiil walaalkii ah tahliil shaahaan u shubee bal ii kaadi tahliile haye tahliil waan ku salaamay shaahaan qabso oo halkaa ii fadhiiso soo dhowow ha ismartiyeyn mahadsanid walaal filsanay adigaa mudan waan maqlay dabcan waxa idinku dhacay saaka runtii waa wax aad looga xumaado oo waxaan loo dulqaadan karin qof kastana uu ka xumaan lahaa ayaa dhacay haa walaalay dhibaato ayaa doomihii naga soo gaaray waana u bixi weynay kalluumaysigii aan isu diyaarinayn maalmahan oo dhan hadda maxaad ka yeelaysaan doomahaas la dalooliyey
ilaan waa qasab in wax laga qabto oo la sameeyo sida aan filaye muxuu yahay qorshaha aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan waa runtaa walaashay filsan waa in la sameeyaa doomaha laakiin hadda ma suuroobayso inaan horay ka samayno ciladaasi jirta oo maxaa sababaya inaad dayactiri weydaan haddeer abbaayo kalluumaysiga ma aadayno ilaa doomaha laga samaynayo mana garanayno muddada ay qaadan doonto ilaa doomaha laga samaynayo waxaa loo baahan yahay dhaqaale lagu dayactiro dhaqaalahaasna hadda gacanta kuma hayno ma naqaan waxaa samayna filsanay haa waan gartay waan idin salaamay filsanay tahliil waan kaa qaadnay colaad ii wad hadalka maxaa xal ah oo aad ku dhaqaaqaysaa si doomaha loo sameeyo tahliilow filsanay walaalay lacag badan ayaa loo baahan yahay iyadoo lacagtaas aan la helinna iima suuroobayso in aan doomahaas dayactiro oo aan dib u sameeyo dhaqaale ayayna ku xihan tahay waad ogtahay soo maaha samaynta doomahaas waxa aan tahliilow alaabta kaa maqan sida alwaaxyada iyo qalabka kale ee loogu talagalay markaasi in lagu dayactiro doomaha aniga ayaa ku iibinaya wax dhibaata ma lah gadaal ayaad ka dhiibi doontaa lacagta wixii kale ee kaa maqan xitaa waa soo iibsanaysaa insha allah yah colaadu warkaas run miyaa saaxiibow lacagta gadaal miyaan ka bixinayaa ma iga sugaysaa laakiin mise waad igu ciyaaraysaa niyow war ma kuuga ciyaaraya runtii waa iga dhab lacagtaasi gadaal ayaad ka bixinaysaa hadduu alla idmo laakiin hal shuruud oo keliya ayaa daba socda oo la rabaa inaad fuliso oo haddana waa maxay shuruudda saaxiibow lacagta waxaad ii dul saaraysaa 30% waayo waa inaan wax ka faa'iidaa maxaa yeelay aniga shaqo ayaan qabtay naftigayga yah boqolkiiba 30% sug tahliil sug waa xaddhaaf dulsaarka aad sheegayso colaadow suuragalna maaha taasi bal wax macquul ah sheeg sidaas ayaa lagu wada shaqeeyaa caadi iska dhiga magaalo ayaa la joogaaya tahliilow aniga ayaa maalgelinaya lacagta lagu samaynayo doonyaha laakiin kalluunka aad soo jilaabato aniga ayaad iga iibinaysaa qiimahana waad iga dhimaysaa ilaa aad iska bixinaysid lacagta deynta ah heshiiskaasi bal ka warran see kula yahay oo adiga ayaa iga dhiibaya soo maaha waan oggolahay sidaas diyaar ayaan u ahay anigana waa iga diyaar dhaqaalaha ku baxaya dayactirka sheekaduna halkaa ha inoogu dhammaato waannu is afgarannay soo maaha filsanay aad ayaad u mahadsan tahay waad iga farxisay wallaahi rajawini ayaad igelisay waad mahadsan tahay walaashay adiga ayaa mudan tahliil waan isku leenahay dabcan sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u howlgelayaa waxaan u sheegayaa saaxiibaday arrintan farxadda leh ee soo kordhay iyo sidaad noo caawin doontid haddaan aadayaa saaxiibadan u sheegayaa diyaar ayay kuu tahay tahliilow lacagta aad ku howlgelayso wakhtiga aad doonto iigu imow waad mahadsan tahay walaashay aad baad u mahadsan tahay aniga waan idinka sii tegayaa asxaabay waxaan idiin sheegayaa labadiinaba inaad u baahan tihiin inaad soo barataan cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga labaduba walaalayaal hala aamuso shirka ayaa inoo furmi doona mudane warsamo ayaa inoo furaya fadlan ha lays dhegaysto si wanaagsan ha laysku maqlo waana mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad shirka uga soo qayb gasheen dhammaantiin akhyaaray waxaa noo yaalla qodobo aannu uga hadlayno shirkeenna maanta kuwaas oo kale ah dhismaha saldhigga booliska oo heer gebagaba ah maraya ilaa hadda iyo dadaalka dhallinyarada iskaashatay ay ku hagaajiyeen dhowr fasal oo iskuulka ka mid ah ma isla fahmnay intaas waxaan u malaynayaa howlaha aan soo xusay ee dhismaha saldhigga booliska iyo iskuulka in dadaal adag loo galay welina waa kuwo inoo socda oo u baahan in aan iska xil saarno soo maaha sidaas haddana waxaan hadalka siinayaa jawaahir iyo marwo oo ka mid ah dumarka reer isku filan oo bulshadu ay wada garanayso oo ah gabdho firfircoon oo u dhaqdhaqaaqa horumarinta deegaanka sida nabadgelyada iyo waxbarashada iyo caafimaadka isdhexgalka bulshada iyo isfahamka deegaanada hareeraha nala ah oo deriskeenna ah gabdhahaasaan ku soo dhowaynayaa ku soo dhowaada jawaahir iyo marwo haa ka dhowna eed ayaa mahadsanta adeer warsam eed ayaa mahadsanta adigaa mudan jawaahir adigaa mudan adeer soo dhowow weliba ka eed sidee golo inaana ogaysiiyo bulshooda reer isku filan in iyo onhayna dad irkaha ka dhiy oo iyo iyan dad ehel eh wali kale ana an sheegay in qoyskun iyo ka mid ayiin dad barakacyaal eh taas haata uu adeerkay suldaanna waliba isuna ka mid ayaa dadka barakacyaalku waa runtaa
wali kale oo jiree dad badan oo barakacayaalkun oo unu hasla korni runto ina lakaga bada ma ah waa dhibaato in markasta khilaafaad la ka dhex jira weliba dadka iyo oyin dad khilaafaad mar walba ka dhex jira arrintaasayna waa arrin aad aan xanuun badan u taasay dadka isla dadkiyo oo degan beledka hareerasho isku filan oo degan weliba muddo qarnayaal weliba un enaa dad walaale onshal gohaana oo onshal maaragna waana wayba faylan in la ku wada shaqeeyo wanaagga haddii unu enna lamaada bulsha war suga war khayraadkeenna isku filan xitaa innagaynaguma filla mana hayno waxaynu qaybsanno sidaa darteed waxba uma awoodno dadka kale yaan la degdegin warninka muxuu ka wadaa waxaas war ilaahay amarkiisu badan waan ka soo hor jeedaa hadalka sarmaarke waxaana horay loo yidhi waayeel hortiisa ayaa caanaha loogu barxaa tusaale ahaan eega labadaas wiil oo dhallinyarada ah oo isu tegay si ay shaqo isugu abuuraan tahliil iyo saadaq waa run wey waa sax si wanaagsan waxaa kaloo jira nasre iyo bishaaro oo isku xilqaamay dhowr fasal oo iskuulka ah kuwaasoo baahi weyn loo qabay waxaana wax ku baranaya carruurta magaalada iyo kuwa barakacayaasha miyaydan arkin waxaas oo dhan maxaa indhaha laysu tirayaa waa sax wey waa run wey waa sax wey kabtan bilaal waa kan horteenna jooga wuxuu u halgamayaa in muddo ah sidii uu u qori lahaa dad ku biira ciidamada booliiska waxaan soo jeedinayaa in ciidanka laga qoro labada bulshaba maasha allah war halla aamuso hallays maqlo bismillaahi raxmaan raxiim war waa maxay dadkan halla aamuso fadlan waxaanoo kale yaa arkay naga aamusa dad waaweyn baatiine waxaanoo kale weligeed lama arkan fadlan halla aamuso miyaydaan wax maqlayn waa laydinku xiiqee war sheekh cilmi iyo sharmaake adinka maxaa idinla tahay arrintani waad aragtaan oo dadkii waa la aamusin la'yahay oo buuq iyo sawaxan baa carrigii qabsaday adinka bal maxay idinla tahay waad u jeeddaa warsabow in laba dumara ay magaalada isku filan u keeneen fursad lagaga hortegi karo colaadda war ma jiro sharmaake haye adiga sideebay kula tahay aniga xaggayga sheekh cilmi sida uu sheegay ayaan la qabaa oo aan ku taageersanahay kuna aydsanahay marka aanu sheekh cilmi kaga daba dhufan maayo walaalayaal aan ismaqalno dhammaanteen goluhu waa isku raacay arrintan waa in horay loo sii socdaa waxaan dhammaan bulshaweynta reer isku filan ka codsanaya in la bilaabo dhammaystirka howlahan oo loo wada istaago rag iyo dumar saqiir iyo kabiir oo dhexda loo xirto ciroole iyo carruurna allah ka dhige ma i fahamteen waadna mahadsan tihiin ballanteennuna waxaa weeye iskaashi iyo dadaal iyo is-afgarad iyo maxaan ku idhaahdaa hadal yar iyo hawl badan aad baa u mahadsantihiin mar kale